الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حمدا لله، إلهي باكم هذينينا صلاة الظهر جماعة naga soo qayb galiyay walaal culimada masaajidka ayaa naga dalabtay kelmad inaan sheegno. salaadii duhur markaan ka baxnayna kulligaan wacdi baa laynoo jeediyay haddaan wax ku qaadanayno, wacdi dhammaystiran. wacdigaasi muxuu ahaa? janaazaan ku tukannay, salaat aljanaaza xaadira. qof walaalkeena ayaa meydkiisii intoo la soo geliyey halkaa aan ku tukannay, deedna waa la qaaday. kafaa bilmowti waacida, waana waxa kugu filan waa geerida. wacdi waxaa kugu filan waa meydkaa aad arkaysid. اغدوا فإنا راحون أو روحوا فإنا غادون موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول فالأول ويبقى الآخر لا حلم له. أبو ذر الغفاري الله رأى النقدة أيا جنازة مركب ميت وأركبوا أورنجري لا عرابة أنا كنا وكسو دبك اللي دونا أما لك الله أبو أورنجري أنا كنا قلبت وما كذب إيمان دوناي وكسو دبا عرابي دوناي. موعدة بليغة وأنا حال درويان وغفلة سريعة. هذا كنت لقلنا جيرد ويكون إيمان إيسا يذهب الأول فالأول مدك وكهر ريب وآخرة وكهر رينيا أجل بالله يا حنون الله مردنتو قاجنا الله مردنتو حبنا الله مردنتو وحلو دمنا يا وأجل ويان وأجل. لن تموت نفس حتى تستكمل آخر رزقها. نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها نفنا ما دمانيسو أدوية كبح ميسو إلا أرزاق ديد إنت أدن بيسيد دميستر تمو يعني. ميتك أن كنت كنيبا إنه غفلا وعدي هذا دتكو أي وحكو قادنا يا المانت. والله صعدا حق الله صعدا ماشي رنتا هيد الله صعدا ماشي رنتا هيد. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إلهي بأنه شيء naf walba geerida waa dhadhamin baa ilaahay waa dhadhamin.
waxaad duubaysaan iska daayo dhegaysta uun ha ciyaaloobina halkan wacdi waayaan waxa laga hadlaya waa wacdi waxa lagugu baraarujinaya waa aakhiradaadii waxa lagugu baraarujinaya waa hadafkii adduunyada laguu keenay waxa laguu sheegaya lagu tilmaamaya waa meeshaad u socotay runta ahayd weeyaan marka qalbi wax weelaya allah ina siiyo naf walba baa ilaahay leeyahay geerida waa dhadhamin camalkaad adduunyada ku soo shaqaysayna aakhira laynaga abaalmarin doonaa halkan wixii adduunyada aad ku hadlaysay waa la qoraayey waxaad samaynaysay waa la qoraayey maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid bini aadanka afkiisa hadal kama soo dhaco ilaa waa la qorayaa wawudica alkitaabu wajii'a biاnnebiyiina waashuhadaa maalinka qiyaamaha kitaabkaa la soo dhigi doonaa kitaabka maxaa ku qoran maalintii aad qaan gaadhay ilaa naftu ay kaa baxaysay wixii aad eegaysay wixii aad cuntay waxaad ku hadlaysay waxaad dhegaysanaysay meeshaad tagtay saad u socotay wixii oo dhan baa lagu soo qorayaa lagu hordhigi doonaa qiyaamaha iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba ilaahay baa ku odhan doonaa addoonkan oo kitaabkaaga adigu akhriso halka ula baxo adigu akhriso adigaana isku filana cid ku xisaabisaba uma baahnide adiga unbaa miisaanka isa saaraya oo isa soo caddayni doonaa ma naar baad u qalantaa mise jannaad u qalantaa faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz ilaahay baa yidhi qofka naar laga badbaadiyey ee janno la geliyey kaasaa liibaane baa ilaahay yidhi xaqiiqadii kaasaa liibaane naar allah inaga badbaadiso aamiin dhahada jannadana allah ina geliyo allahu akbar daci اlayaama tafcalu ma tashaa waطib nafsa ida xakama alqaضاء walaa tajzac ولا تجزع لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء maalin baa iman habeen baa iman kulayl baa iman qabow baa iman nolol baa iman geeri baa iman cabsi baa iman nabadgelyaa iman faqri baa iman barwaaqaa iman waa nidaam ilaahay adduunyada ugu talagalay waxaas in mar cabsi timaada mar barwaaqa timaada mar nabad la helaa mar la bukooda mar la caafimaada mar la dhashaa mar la dhintaa ini ay dhalataa ina ay dhimataa ini fuqaro noqotaa in aghniye noqotaa undur kayfa fadalnaa bacdahum calaa bacdin walalaakhiratu akbaru darajaatin wa akbaru tafdiila eeg baa lagu leeyahay bini aadamka saan u kala sarraysiinay laakiin waxaa fadli badan baa ilaahay yidhi aakhiro darajaadka aakhira ninka hele baa fadli weyn helay walaalayaal daar alimtixaan baan ku jirnaa maxaan ku jirnaa daar alikhtibaar marka nolosha ilaahay baa kugu deeqay dhimashadana ilaahay baa kugu xakumay ogow meeshaad doontana joog waa dhiman maalintii lagu qoray inaad dhimato unbaad dhiman 120 habeen caloosha hooyo ilmuhu markuu ku jiraa malag loo soo dhiibaa ruuxda markaasuu ku afuufaa markaasuu malagaasi 4 buu u qoraa buu nebigu yidhi 4 buu qorayaa qofka ma labbaa ma dhidig baa habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi ma shaqi naar ku dambaynaya mise waa siciid janno galaya habeenkaabaa la qori buu rasuulku yidhi fama risqu adduunka intuu joogo muxuu quudkiisu noqonaya habeenkaabaa la qori fama alajalu halkuu ku dhimanoo halkee lagu duugi habeenkaasaa la qoraa buu rasuulku yidhi marka waa dhimashaad u dhalatay waa inaad tidhaahdaa aniga haddaan dhinto ma rabbigay oo iga raallayaan dhimanayaa mise ilaahay oo ii cadhoonayaan dhimanaya nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam siiradiisa noloshiisa o dhan waxaan ka fahmaynaa meesha muuminku adduunyadu maaha meesha muuminku ku raaxaysanayo muuminku meesha ku raaxaysanaya waa jannada weeyaan meesha muuminku ku raaxaysanaya waa jannada الدنيا سجن المؤمن
وجنة الكافر بالنبي يقول الدنيا نيكا مؤمن كجيل بيوتها الجيل نيكا الجيل كجرا اختيار ملك حرية ما هيستو لكن نيكا الجيل كجرا هم يجي سوقين وامحي قور ما جيل كاللي يجي سيدين دونا قور ما جيل كبحا تذكر جالس كجرا همي كلام ملك تجارت كوها مني مايان oo guri dhismihiisa ku hamini maayaan oo ganacsi ku hamini maayaan oo dhoof iyo guur ku hamini maayaan hamiga ugu weyn qofka jeel ku xidhan waa goorma jeelka ka baxa uu saadarteed buu nabigu leeyahay adduunyada muuminka waa jeelkiisi waa jeel maxaa loo jeedaa adduunka inta qofka muuminku uu joogo macnaha xorriyadiisii sidoo doona uma socon karayo waxa uu adduunyadan doona inuu ku sameeyo ma sameyn karayo waayo shariicad buu qofka muuminka leeyahay shariicad oo aragga ilaahay baa ku siiyey haddana araggaaga awaamir buu leeyahay awaamir aragga awaamirtu leeyahay waa maxay waxaa eeg baa laga yidhi waxaan ha eegin ba shariicaddu ku leedahay carabka ilaahay baa ku siiyey shariicaddu waxay ku leedahay waxaa ku hadal waxaan ha ku hadlin bay ku leedahay maqalka ilaahay baa ku siiyey shariicaddu waxay ku leedahay waxaa maqal waxaan ha maqlin bay ku leedahay caloosha ilaahay baa ku siiyey waxaasi waa xalaale cun bay ku leedahay shariicaddu waxaana waa xaaraan ha cunin bay ku leedahay socodka ilaahay baa ku siiyey shariicaddu sidaa u soco bay ku leedahay sidaana ha u socon bay shariicaddu ku leedahay walaa tamshi fi lardi maraxa sidaa mutakabiriinta ha u socon shariicaddaa ku leedahay sidee u soco waaladiina laa yashhaduuna azuura waidaa maruu bilagwi maruu kiraan baaba ilaahay yidhi sidee mu'miniintu u socdaan waa sidee meel khaflad iyo macsiyo lagu haya hadday soo maraan ayakoo maamuusan oo karaamaysan bay dhaafaan baa ilaahay yidhi shaqo ku darsan maayaan waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim axkaamta indhuhu ay leeyihiin eeg basarku axkaam buu leeyahay axkaamtiisu waa maxay waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim مسجدك dhexdeeda maaha waxa qadul basarka laga doonayo masaajidka dibadda markaad ugu baxdaan la doonayaa indhahaaga inaad laabtid wixii muharramaada ilaahay ka xarimay oo dhan indhahaaga ha ku eegin laakiin indhaha maxaa ku eeg laga yiri afalaa yanduruuna ila al-ibili kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat afalam yanduru ila as-samaa'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wama laha min furuj samada ku eeg baa laga yidhi oo aayaadkan ilaahay ku eego ilaahay ku garo sida geela ilaahay u abuuray fiiri sida buuraha ilaahay u abuuray fiiri sida badda loo abuuray fiiri sida cirka loo joojiyey fiiri sida makhluuqa loo abuuray fiiri aayaadka ilaahay ku eeg baa laga yidhi cibro u eeg mooyaane indhahaagan adigu ma lihid oo waxaad doonta inaad ku eegto xor uma tihid marka muuminkii مقلكي بين نقطتين إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا والله سوى دين دونا مقلكي ولا قويدين وأرقي ولا قويدين مالك قيامة قفل بالله ورسل دونا فبشر عباد الذين يستمعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه هذا الكوناكسن إذا مقشال لجو جديي فعل كوناكسن شريعته وقشة إن هذا رعدا لجو جديي هذا الكحون شريعته إن كرتين أدكت هذا كله جستنا لجو ما قالوا لكن إنك وحنا لنا هاي ما أنت اختيار بان له خاصة اللي يرد إن مركز ترى روحه هذا جيسن وروحنا داونا شريعته ما قالوا اختيار بان له اختيار بان له مالك القيامة وحاتر على إلهي وأنه اختيار بان لها دهاكم بدبادسي يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون من هم؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين اللهم اجعلنا آمين هذا يا عبادي
banka qiyaama maalinta la joogo ee qof walba gargaariya gurmad uu sugayo ayaa xagga ilaahay waxa ka iman doona iclaan ogeysiis oo la oran doona yaa cibaadi adoomahaygiyo laa khawfun calaykum alyawma walaa antum taxzanuun maanta ininka korkiin cabsi iyo murug midna ma saarno allah inaga dhiga kuwaas maalintee waa maalinka banka qiyaama la joogo يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وحير با ما انت ددك ادون كودن كيبيو كقيلسي بنك قيامه كورما مالك قيامه كورما حالده سي نقود دونتا maalinka qofku gargaar uu baahan yahay gurmad uu baahan yahay ayaa xagga sare iclaan baa ka imanaya oo la oranaya adoomihii ilaahay maanta iyaga dushooda cabsiyo murugi ma saarno man hum wa kuwe alladheena aamanu bi ayatina wa kanu muslimiin wa kuwa adduunyada markay joogeen ilaahay bay rumaysnaayeen aayaadka ilaahay bay rumaysnaayeen janna inay jirtay garanayeen naar inay jirtay garanayeen xisaab inay dambaysay garanayeen imtixaanka adduunka inuu dhamaanayay garanayeen laakiin imtixaanka runtu aakhireen u dhacay bay garanayeen dadna adduunyadii bay ka soo sahay qaateen ilaahay bay soo raali geliyeen kuwa muslimiin oo toosan bay haayeeno ilaahay u hoggaansan bay haayeen maxaa markaa lagu oran doonaa udkhulul jannata antum wa azwaajukum tuhbaruun yutaafu calayhim bisahaafin min dahabin wa akwaabin wa fiiha ma tashtahiihi al-anfus wa taladdu al-a'yun wa antum fiiha khaaliduun jannada loogu baaqaya ayaa ka oran doona ininka maanta kuwa cabsoonaya ininka maaha waayo adduunkii baad ilaahay ka soo cabsateen ininka abaalkiina maanta waa janno allah inaga dhiga kuwaas qulu amiin dhahada adduunyadan waa daaru tacab baan joognaa daarul canaa daarul ibtixaan weeyaan adduunyada waa imtixaan mar waa cabsi mar waa geeri mar waa bugtaan mar waa faqri mar waa abaar mar waa barwaaqo mar waa farxi mar waa murugoon daci الايام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء ولا تجزع لحوادث الليالي لحادثة الليالي فما لحوادث الدنيا بقاء maalmahan adduunyada ee axwaashu ay la socoto ha eegin ha argagixine adoo waxaad haysataa ilaahay xarigiisa hayso amarka ilaahay hayso sunnaha nabi maxamed hayso inaad dhimato ayaad u dhalatee inaad noolaato uma dhalan jannadaadi halkan maaha qofka muuminka jannadiisu aakhiro weeyaan wixii ilaahay ku keenana ku raalli noqo ka faqriga loo qadaray faqrigiisu waa inuu ku raalli noqdaa ka caafimaadka la siiyey caafimaadka waa inuu ku raalli noqdaa ka awlaadda la siiyey awlaadda ilaahay waa inuu ugu shukriyaa ka awlaadda laga qabtay awlaad la'aanta waa inuu ilaahay ugu shukriyaa ka nabadgelyada la siiyey nabadgelyada waa ilaahay inuu ku gartaa ka cabsida lagu imtixaamay cabsida waa inaad ilaahay kaga cabsataa ka mas-uulka laga dhigay mas-uuliyadda ilaahay waa inuu kaga baqaa ka mas-uulka laga yahayna marxaladaad ku jirta adiguna ilaahay ku garo kaga baq bas noloshan adduunyadu wax daa'imaysa ma aha mayd baan ku tukanay beritoole innakana waa laynagu tukan ogow marka jannadeenni halkan ma aha jannadeennu way dambaysaa ilaahay baan adduunka dusheeda ku caabudaynaa ku adeecaynaa ku raalli gelinaynaa wixii ilaahay noo qadarana raalli baan ku noqonaynaa insha allah dhahada waxaa keliya mashaakilka adduunyada maanta ka dhacaaya mashaakilka adduunyada ka dhici jiray mashaakilka adduunyada ka dhici doona xalku waa sunnihii nabigeena muxamed calayhi salaatu wassalaam maanta zamankan aan joogno dad aan islaamnimada xataa aan loo malaynayn inay islaamayaan qaarkood waxay ku islaamayaan xadiidkii nabigeenna uu yidhi haddaad maqashaan meesha taacuun baa ka dhacayna ha gelina meelaad joogtaan hadduu taacuun ka dhacana buu nebigu ha ka bixina dadkii zamankan culumta maadiga yaqaana waxay leeyihiin 1400 sano ka hor ma nebi maxamed hadalkuu ku hadlay ayuu maanta caalamka ku dhaqmaya oo ku camal falaya mutacalimiintii yurub ugu aqoonta badnaa axaadiista nebigeena markii loo sheegay bay ku islaameen
xanuunkan maanta adduunka lagu sheegayo ilaahay hay naga ilaaliyo amiin dhahada insha Allah dalkeena ilaahay noo keeni maayo insha Allah dhahada insha Allah dhahada wala reejibuuti ay la soo hadlayso muqdisho ka warano waxa ay muqdisho 30 sano imtixaan ku soo jireeno imtixaankan maanta adduunyada ka dhacaya insha Allah ilaahay yaka ka ilaalin insha Allah dhahada muslimiinta oo dhan Allah ka ilaaliyo amiin dhahada wa caalamka oo dhan Allah ka qaado amiin dhahada laana waa balaayo haday timaado cid walba way saameyn kartaa Allah inaga ilaaliyo halkan soconay marka xukun القضاء والقدر وهلك مسلم يقالك كوكلا وعدان مسلم كواحد الله دونا يا وحي إلهي كيني رالي ما كنا قضاء أذو قدرك إلهي آمنسا ووحي إلهي كوكينا كرا ليا هذا الدين تينو وحي قبتا قفك بن آدم كون والله ما هذا احتياط وكان النبي قال إنه شيء إليه meesha taacun baa ka dhacay haddaad maqashaana ha gelina meeshaad joogtaan hadduu taacun ka dhacana ha ka soo bixina buu rasuulku yidhi mutacallimiintii reer yurub qaarkood xadiista nebiga sal allahu alay wasalam bay ku islaamayaan ay leeyihiin 1400 sano ka hor ninka hadalladaa ku hadlaayey ee maanta xadiiskii uu 1400 sano ka hor u sheegay caalamku u arkay xalka keliya ee xanuunkaa maanta la sheegaya lagaga badbaadi karo والله وحيد هذا النقاس النبي بوهاي بشر عادي ما هين أشهد أن محمدا هل قبل لقوا الإسلام يا مانتا فرح الكبا للي فرها مسكبها مر والله هذا دتك وشيء يا وزارتها عافماتكو لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام صحابتي سوحوا كيري هبينك مرقد هردودا كسو كعدان وعوه الريال قبطان هنقو بقعمين نقضب رسولك يري وهي حالي تولي قعدينو ميلي بريدة كما ورقبتاني nin saxaabada la fadhiyo muslimiinta kamida ayaa qalbigu ka yiri hadalka nabigu waa iska yiri ma nin baa ka warqabin gacantiisu meesha xalay bariday iki hadalka ma inkirin carabka kama inkirin laakiin qalbiga ayuu yiri ma nin baa ka warqabin meesha gacantiisu xalay bariday habeenkii markuu seexday waagii markuu bariyay ninka qayliya la arkay qayliyaya oo cabaadaya waa la dul tagay waxa loo yimid isagoo gacantiisii duburka inta kula jira tiisii markaas laga soo jiiday markaasuu yiri walaalayaal haddaad maqashaan nabi maxamed baa sidaa yiri samicna wa ata'na dhahada buri nabigu wuxuu sheegay waa run weeyaan hada caalamka waxa uu leeyahay gacmaha dhaqda oo cadayda oo wajiga dhaqda oo biyo ku istinjooda oo nadaafada ilaaliya nabigeena maxamed alayhi salatu wasalaam waxa soo dhanba nabigu waxa uu nooga dhigay inaga waxa uu nooga dhigay shariicad buu nooga dhigay hadaad cuntada cunaysaan waxa sunnah in gacmaha biyo kor ka yimid lagu dhaqo hadaad cunto cunaysid waxa hadigi nabigeena kamida in saddexda farood lagu cuno hadaad saddexda kareyna shanta ku cun markaabuu nabigu yiri gacanta markaad cuntada ku cuntaan sida uga leefleefa buu nabigu uga leefleefa maxay jirka bini aadanka difaac ba ilaahay galiya difaac xanuun walba ka ilaalinaya biyihii baad ku meedhatay waa difaac baad ka helaysaa dhareerka jirkaaga ka soo baxaya waa difaac weeyaan bisinkaad u qabatay bisinka dhan baa difaaca cuntadii jeermiska ka laynaya cuntada weelkaad wax ku cunayso aqalada habeenkii markaad seexanaysaan weelashiina gembiye buu nabigu yidhi ama maaragtaanay daboolo wax saara haddaad waxaa saartaan weydaan buu nabigu yidhi qori yar soo qaado mara ul yaroo cuuda saara buu rasuulku yidhi waa sunne aqal baa nabiga loogu sheegay reer madiina aqalkii baa ku gubtaa la yidhi wuxuu yidhi habeenkii markaad seexanaysaan dabkaasi waa cadowgiinniya iska damiye buu rasuulku yidhi waa hadigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam nolosha nebi maxamed uu inoola yimiday oo dhan waa nolol adiga ku ilaalinaysa caafimaadkaaga ilaalinaysa diintaada ilaalinaysa waxa uu nebigu noo jideeyey xataa marka la jiifsanayo dhinaca midig in loo jiifto soo sidaama caaisha radia allahu canha waa tii tidhi nebigu gacanta midig buu dhinaca saari jiray deedna ducadaa buu akhrisan jiray allahuma qinii cadaabaka yowma tabcaثu cibaadaka dhakhtaradoo dhan waxay leeyihiin qalbiga bini aadamka wadnuhu xagga bidix buu ku yaallaa ha u seexanine xagga midig u seexda xagga midig qofka u seexda caafimaadkiisa qofkaasi rajo fiican buu leeyahay
hadday cilmigooga aalaadkan maanta ay samaysteen ayay iyagu ku arkayaan walaakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam cilma alwaxyi ayuu nebigu noogu sheegayaa in habeenkii marka la jiibsanayna xagga midigta loo jiibsado markuu hurdada ka soo kacana waxa u horreeyu nebigu qaadi jiray waa maxay waa cadaygiisa cadaygu nebigu sidaa u qabsan jiray xataa maalintuu dhimanayey caaisha u dhiibay cadaygii uhi ii jilci buu ka yidhi afkana ii geli buu ka yidhi cadaygu muxuu laynayaa jeermiska jirhkaaga geli lahaa ama ka soo bixi lahaa buu laynayaa diin dhammaystiran ayaa ilaahay noo soo dejiyey inaan diinteennaa qaadanno ku camal falno oon barannoon ummaddeenna barnoon ka shaqayno taasunba laynooga baahan yahay bas insha allah dhahda soo diyaar uma nihin inuu diinta barto uu diinta ku camal falo uu diinta ummadda gaadhsiiye ayaa u diyaara saddexdaas dembigeenna allaha dhaaf dembiga waalidiinteenna allaha dhaaf diinta allah inoo macaaneeyo maralkeenna allaha shaafiyo mawtaadkeenna allah u naxariisto amni iimaanka allah inoo ziyaadiyo muslimiinta meelay joogaanba ciriiriga allaha ka qaado colaaddana allah inaga rafaco xanuunnada la sheegayna allah inaga ilaaliyo dadku ku dhacayna allaha ka caafiyo dadka u dhintee muslimnimada ku dhintana allaha u naxariisto gaaladana ilaaha waa addoommahaagii waa ducafaa waa masaakiine intii hidaayadda aad ugu tala gasheen ilaahu soo hadee wixii sharrana sharkiisa ilaahu naga qabo sala allahu calaa sayidina muxamed